السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقالة عاصمة مقدشو وحا كسعودة ديوان قلنتا دادوينها قرنقان قبل كبنادر وحانا لشيغي او الدولة فدرالك صوماليا قارهان hay-adda u xilsaaran arrimaha doorashooyinka ama guddiga u xilsaaran doorashooyinka haddii aan si kale u dhigno ay shaaciyeen oo ay sheegeen in wadanka doorasho laga qabanayo oo doorasho qof iyo cod ah ay dhaceyso dadkana la diiwaangelinayo oo laga bilaabay degmada Shangaani ee gobolka Banaadir degmooyinka kalena ay ku xigaan. Haddaba adiga haddii aad qaadatay kaarka oo aad isdiiwaangelisay ma rajeynaysaa in wax walba ay ku socdaan sida in kaarkaasi waqtiga aad ku bixisay qoraxda aad u istaagtay u oontay waqti aad u hurtay in aad ku codeyso oo qofka aad doonto ugu codeyso mise sheekadu waxay noqon doontaa dhaxgelis oo arrimo musuqmaasuq ayaa loo adeegsan doonaa ama adiga laftirkaada lagu adeegsan doonaa. Sidoo kale dhinacyada diidan doorashadan iyaguna ma qaadan doonaan sida ay guddigan wax u wadaan oo ah in doorasho qof iyo cod ah ay dhacdo oo loo codeeyo musharaxiinta ama xisbiyada kala duwan kadibna xisbiga ku soo baxo xisbiyo kale uu la shirkoobo kadibna ay xukuumad soo dhisaan la qaybsado ee wasaaradaha la qaybsado xilalka. Taasi ma dhici doontaa ay tahay su'aasha meesha taalo oo ah laba su'aal oo dul saaran oo dadka si xor ah mu codeyn doonaan mise waxaa la sameyn doonaa in loo taariixiyo oo arrimo musuqmaasuq loo adeegsado. Tan kale xigta waxay tahay ma ku raaci doonaan xisbiyada siyaasadeed ee curdunka ah ee wadanka ka jira oo weli aan fahamsaneen nidaamka xisbiyada ee dhinaca doorashada ay ku galaan. Adduunka waa caadi sida aan ka soo qaadan Jarmalka oo kale ama wadamadan kale ee Yurub aan ku qaadno dhamaantood way ka dhacaan doorasho noocan oo kale ah balse Soomaaliya xilligeeda mala joogaa ma u bisishahay guddiga laftirkooda ma fahamsan yihiin arrimaha doorashadan. Sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ma haystaan tababaro iyo xirfado ku saabsan doorashada noocan sida looga qayb qaato. Aragtidaada qaybta hoose noogu reeb. Anaga ujeedkeena ma ahan inaan wax dumino, ujeedkeena ma ahan inaan qof dhaliilno, ha yeeshee waxaan sheegaynaa mowduuc sax ah oo ku saabsan arrintan iyo sida u socoto iyo in ay noqon karaan kuwa miro dhala iyo kuwa aan miro dhali karin marka la eego sida ay wax ku socdaan iyo inay ku qanci doonaan marka la eego xisbiyada siyaasadeed oo weli arrintan ka cagajiidaya. Muuqaalka marka la sii gudbile garee shar garee oo la sii wadaaga asxaabtaada.